laakiin waa goorme waa markii iimaan la helo dadka inta badan maanta waxay isweydiinayaan muslimiinta dhibaatada ku jiraan maxay maanta ugu jiraan jawaabta oo kooban waxay noqonaysaa ilaahay subxaanahu watacaala mu'minuun wax u ballan qaada mu'miniin ayuu wax u ballan qaada ee muslimiin wax u ballan qaada ilaahay subxaanahu watacaala dadka iimaankiisan gaarin islaamnimadii yaa la jooga islaamnimadii iimaankan waa kala sareeya qof walba muslim ah mu'min ma laakiin qof walba mu'min ah muslim waa kaadiya marka aayad waliba oo ilaahay guushiisa ka hadlayso oo ilaahay maciyadiisa ka hadlayso waxaa waaye waxay ka waramaysaa mu'miniinta wacada allahu aladiina aamanuu minkum ya ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum inaa nansuru rusulana waladiina aamanuu wahakada uma nunajji rusulana waladiina aamanuu wahakada marka إيمانك ضبط عنه وعمل الله سبحانه وتعالى القرآن هو شيء إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ضبط عنه هو إله سبحانه وتعالى صفاتك هو شيء إيمانك ضبط عنه كتاب إلهي إن رميه كتاب إلهي إن لقبصه كتاب إلهي إن لقاطه من كتاب إلهي سبحانه وتعالى ست لغات يا يحيى خذ الكتاب بقوة